السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا رسول هذا ما شاء الله ولا شيء نوع إنسو ما شاء يقصر لعبته دولا هذا ما أنت نوع يربع ذي وضع إن شاء الله ما أنت وحاط بعد دولا هذا ولا ما ندوبه وأنا ير قصعته استحتال بيد مركورة لكن ما أنت وحان وانينا يا ولش الصوماليات ولا لها يا إن شاء الله بإذن الله الكريم ولا لها قالقة ولش الصوماليات ولا لها إن شاء الله مرة إلى الشيء مرة ولا لها يا مرة إلى لي ما شاء الله تبارك الله ما أنت واحد السينا يا وأنا ير وآدي إذن أفعي دونته كيني ولايا أما قاطع إن شاء الله بإذن الله الكريم ولا ليال والداسي waxay tahay waan ka soo hadlay labada qof waxay isku fahmi waayaan ama qisooyin iyo waxyaalahan ka hadlayo dhan waa maaragtay waxyaalo badan oo iswada quseeyaan ka hadli jiray insha Allah oo waxa u badan hadda reeraheena dumiye ah walaal maanta waxaan kula hadlayaa insha Allah waxaan ku sheegayaa wiilka Soomaaliyeed ee reer kale waswaaska waan ka sheekeynay sidii maaragtay loo kala shakisan yahay dadka Yurub jooga iyo meelahan jooga waxyaalaha keena dhibaatada maaragtay dadka u geysanay dadka isku diraya waxaan waxba ka jidin kala shakiga waliba wiilku inuu shood qabo wadankan oo gabadhiisa ka qabo oo xataa iyadoo aan gabadha iimaanay waa ka idin sheegay gabadhii aan iimaaninba uu shoodka ka sii qaadahay uu maaragtay uu leeyahay iga ilbixinina iyo heblaaya iyo iga fiiriya iyo maaragtay haygala hadlina iyo hayga barina meelaha kaarka laga soo fiiqday iyo gabadhaas hayga ilbixinina ilaahay baan ugu dharshay camal marka insha Allah maanta waxaan ka warramayaa walaalkayga Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed gabadhaada ama xaaskaada ilmahaada dhashay ee ilmahaada hooyadooda ah xaq faquuqin reerka ereygaas waa erey weyn walaalayaal insha Allah oo fiirsada walaal wiilka Soomaaliyeed ha isku dayin gabadha caruurtaada dhashay ee ilmahaada hooyadooda inaad reerkeedii intaas oo dhan ku soo daalaysay awlaadeedii iyo odaygeedii ay ku soo tabcaysay ha isku dayin inaad ka faquuqdo amniyadaada aad gashato inaad ka faquuqdo oo ka ilaaliso marka faquuqitaanku waxay noqon kartaa waxyaalo badan inaad ka faquuqdo xagga dhaqaalaha waa faquuqitaan inaad xagga xushmad darrada aad ka faquuqdo xushmeyn weydo waa maaragtay waa xaquuq waa inaad maaragtay faquuqday wey haddaad maaragtay hadalkeedii qiimeyn weydo oo tala ay ku keensatay ama ay tala ay ku soo jeedisay aad qiimeyn weydo waa faquuqitaan waa iska ilaalin waa qof aad faquuqayso waa qof aad iska ilaalinayso waa qof aan qiimo weyn kula lahayn walaalkay qaaliga haddaad isku daydo inaad gabadhaada faquuqdo oo waxaan kuu sheegayaa inay guul darro ku dhammaanaysa arrintaadu ood ku guuleysanaynin weligaa reer qabuuna kuma guuleysanaysid maaragtay dhibaatana weligaa kama baxaysid weligaa waad wareersanaanaysaa weligaa iyo allaha meel lagaa haystaada garanaynin hadda adigaa dhibaatada isku keenay ogow reerkaadii baad xaquuqday gabadhii caruurtaada dhashay baad faquuqday gabadhii ilmahaada dhashay baad nafsi ka gashay ood faquuqday ood iska ilaalisay ood leedahay yaan wax layga barin gabadhaas maaragtay yaan adduunyada la tusin waxay tahay sida iyadoo xoolo camal ah qofkan asaga indhale asaga aqli leh haddaad moodayso inaad lugaha ka xirxiratay ood gacmaha ka xirxiratay xitaa dadka taqaano inaad ku tiraahdo ha iga barin oo qof bini aadan oo adoo kale ah oo sida wax u baratay u baran kara wey taa waxaa kaaga qiimo badan adigoo gabadhaada ixtiraama oo sharfa wiilow waxaan kugula talinayaa haddaad rabto inay gurigaada uu barwaaqo noqdo haddaad rabto inaad gurigaad ku noolaato uu raaxo noqdo haddaad rabto raaxada meeshaad ka daydayayso ma aha waxaasoo dhan ma aha gabadhu inay sidan ugu yeeshay iyo inay waxaasoo dhan ma aha guri ay gabadha joogta faraxsan tahay wuu faraxsan yahay ilmihii baa faraxsan hooyadu hadday faraxsan tahay hooyadu hadday niyadeedu faraxsan tahay hooyadu hadday maaragtay waxay dareemaysa inay jirin hooyada haddan la faquuqayn hooyada ilmahaada dhashay haddaad rasbaktiyeyso ama aad qiimayso rasbakti garayso qiimayso ood waxay tahay waxay guddo aad ogaato
oo inay ilmahaada hooyadooda tahay ood ogaato oo qiimo sare kula yarato madaxa saa u saarato adigaa farxaya ilmahaa dashay baa farxaya ehelkaadoo dhan iyo wixii ehelka dhinac kastaba ka imaadaa farxahaya ummadii u nasab sheegasta gurigaa iyo qoyskaasoo dhan baa wada farxaysa hooyadu hadday faraxsanaato adduunyada ku weegaarsan oo dhan baa farxaysa marka hadduu ilaah ihahda farxadda meeshaan ka raadinayno ama meeshaad wiilasha soomaaliyeed ka raadinaysaan ma aha bal isku daya oo gabadha aad maaragtay ilmihiina dhashay ama hooyada caruurtiina hooyadood qiimeeya oo qadariya oo madaxa saarta markaad madaxa saarataan idinka arki doona natiijadii ka timaado inay idinku isku geysanayseen dhibaatada iyo inay iyadu dhibaatada idiin geysanaysay idinkaa markaa kala ogaan doona marka walaalayaal insha allah taladan idin siinaya waxay tahay gabadha aad qabtaan ama ilmaha idin dhashay ama ilmihiina hooyadood ha faquuqina reerkana ha ka faquuqina nabsiyay leedahay dhibaatooyin bay leedahay waa la arkay kuwo intay say iskaga ilaalinayeen reerka gabadhii oo waxbaba ka ogeynba maskiina oo ilmihiisiiba ku mashquulsan oo iyadii daalan sushood ay u qabeen iskaga ilaalinayeen waxuun u kala qarinayeen intay cudurro ku wada dhaceen cumri degdeg ku wada dhacay wada waashay daawooyinka waalida wada qaata meel looga yimaado meel laiga yimaado garmaayo kan baa igu dhacay waa wuxuu isagu kasaday gacmihiisa ku kasaday sababta shood ay gabadha u ogeyn buu qabaa maskaxdiisa tanaa naagtan baa kugu kibri buu ku hayaa xagee gabadha u kibri xagee aadi hadday kibirto war xagee aadi adigu ilaahay baa ii baneeyay baad leedahayo waad guursan kartaa iyadu markay kaa kibirto xagee aadi xagee u kici kibirkaba maxaa keeniba hadday way eriyeysa aad leedahay waxa lagugu eriyeyba daa adigu idab yeelo oo reerkaada hayso oo maaragtay talada kale eeda siinaya waxay tahay walaalayaalow gabdhihiina meesha aad kula soo noqotaan tala kasta ha noqoto hooyada ilmahaada dhashay meel kasta haddaad talada wax allaalo oo adduunka aad ka damacdo iyada kula soo noqo meesha ay gabadha maaragtay ninkeeda la talisa ragga kale wuu ka qurux badan yahay wuu ka sharfan yahay wuu ka qiimo badan yahay gabadha ninkeeda la talisa ama ninka gabadhiisa intuu qiimeeyo maaragtay talooyinkeeda qaata adduunyada siduu oga nool yahay bini aadan kale ogama noola ama ragga kale ogama noola ee agtiisa ah marka insha allah gabadhaadu ha ku noqoto maskaxdaad ku shaqaynaysay iyo lugahaad ku shaqaynaysay iyada ku kalsoonow iyada ku kalsoonow haddaad xitaa damacdo inaad wax kala raadsato xitaa way kugu kaalmeyn hadaad u sheegto ood maaragtay kalsoonida intaa leeg siiso ood maaragtay iyadii sharafto ood xaquuqaheedoo dhan kasoo baxdo way kugu kaalmeyn afartaba guursay kudhihi hadday rabto waxba maaragtay kuma haysanayso haddaad iyadiiba aad maaragtay hagaajisay laakiin iyadii oo aad la rafanayso ood isku waalateen haddaadana meel kale u goodo markaa way marka aad hilfaa lagu qaadaya taana way kusoo cagaajin waxba u tari maysidoo waxba kuu tari mayso sababtoo aad nafsiyaad wadataa oo jiidanaysaa iyadina way kusoo cagaajini marka insha allah intay taa idinku dhicin dhibaatada idinku dhicin walaalahayga qaaliga waxaa idinkula talinaya insha allah biidnillahi alkariim inaad gabadhiina santuuq ka dhigataan hadda waa santuuqa caadiga ah ee haddaad meel wax dhiganayso iyada kula soo laabo iyada u dhiibo oo iyada ka warso oo iyada ka farxi oo iyada waxa kula ogaato oo iyada waxa kula maamusho oo iyada waxa kula qiimayso reerka ay gabadhu wax ka qiimayso darajo weyn bay gaadhaan adduun iyo aakhiraba wax weyn bay tartaa war gabdhihiina madaxa u buuxiya oo waxaad ka qarsanaysaan daaya iyo waana lagula taliyey iyo labada sano ee ugu horeysa waa in gabadha wax laga arursaday iyo waxaad daldalaysaan oo dhan waxba idinma taraysee iyada waxaasoo dhan iyo wax ka badan baad helaysaane iyada intaad dib ugu soo noqotaan iyada farax geliya oo iyada waxay raalli ka tahay weydiiya iyada talada weydiiya ilmaha yarka ahayd adigu dhashay maanta haddaad tala weydiin weydo reerka waxa kuusoo waxayn weydo ama aad say qiimeyn weydo ilmaha iyo ada isma fahmaysaan sababa ruuxi weynaa ee ilmahaada dhalay ee reerkaa dhan uu ku taagnaa tiirkiisa maanta hadduu qofkaa dhinto ama uu meel ka aada reerku indhaha isku qabsanayay qofkaada sidai ciyaalka ula dhaqmayso yaad leeda yaa laga ilbixinaya yaa laga fiirinaya yaa laga dhowrinayo walaalayaalow khiyaaliga intaa iska dayno indhahaan kala qaadno toosno biidnillahi alkariim gabdhaha eedda la saaraya laga daayo bac bay dadka u tuuraan nafsi baad ka gelaysaane bac idinma tuuraan gabdhehe bacna tuuri mahayaane iyadii bay toodi saabatayba masaakiintane ilaahay ka baqo oo nafsiga ha gelina oo reerahu sida ay ilaahay maaragta reeraheenna ha dejiyo biidnillahi alkariim reeraha burburkoodana yaa laga talininoo dadka ka talinaya iyo ragga isku dirhaya gabdhaha ha iska daayaan markastana waan ka hadlaa raggaa isku dira raggaa nimanka iyo isku diraa
reeraha isqaba ragga isku dira odayaasha isku dira gabdhuhu iskuma diraan meeshaad ka raadinaysaan waa been gabdhuhu gabadh intay u imaatana reerkaada dumile ma jirto xaaraan bay ka tahay ha ka yaabin boqolkiiba waxaa laga yaabaa hal in laga helo ama maba ku jirtaba laakiin raggu iyagoo kaftan ka dhigaya maqaxyaha meelaha markay joogaan bay waxaa ku hadlayaan kaftanna ma aha waa wax dhab a weeyo qofkii isagaba marka horeta laga yaabo inuu shood qabay oo waxaa soo maqlay hadhow reerkiisi intuu kula soo noqdo yuu gabadhiisi shood u ka qaaday iyo waxay marka shoodka intaas ka daysaan gabadhiina maaragtay farxadeeda iyo reerkiina farxadiisa wallaahi hadaad gabadhaada farxad geliso iyada un farxad geli aduu iyada un farxad geli adduun iyo aakhiraba adaa liibaanaya oo waxaad doonto dhan gaari oo waxaad qarsanayso dhan iyo waxaan waxba kuu taraynin oo dhan intaad iska dayso iyada farxad geli iyadaa wax kasta kuu asturi iyadaa wax kasta kuu qiimeynay iyadaa wax kasta kula hagaajinay iyadaaba kaa sarraysay oo meel kasta kaaga fiicanay iyada qiimee haddii kale intay ku amustay kuu seexato oo dhiikarro kugu dhacaan cudurro kugu dhacaan oo balaayo kugu dhacaan oo depression qaado oo maaragtay cudurro falkooda waa kugu dhacaan oo kuwa waddanka ka cararay oo balaayo ku dhacday oo waashay hadda waa waxay keensadeen lugahooda ay ku keensadeen wey oo gabadhaasay nafsi ka galeen marka insha allah walaalayaalow taladaa yarta nasteexada le baan maanta maaragtay idin wadaa wiilasha soomaaliyeed oo insha allah bidnillahi alkariim wax xumaataan ayay arkina waa wax maaragtay socda gabdhuhu inay masaakiin yihiin idinka maaragtay hadsaad doontaan u wadwadan kartaan baa idiin sheegaya laakiin ayna iskaga dhigin idinkii cadow ha iskaga dhigina gabdhuhu cadow idin maaha idinku cadow ha iskaga dhigina iyadu hadhow cadow bay kuu noqonay oo waxay dhihi qofkan waxbaba kuuma arkaba inaad wax tahayba yacni jacayl iyo waxaas dhan hadda waa la iskala tagayba jacayl wax la yiraahdo inuu jirin bay gabdhihii soomaaliyeed hadda maba jira jacayl bay kuleeyihiin jacaylba ma jiraba jacaylku muxuu ahaa waxa dhanba yani wax tirtirmay buu noqdayba marka jacaylkii waxa dhanba inti laisla dhaafay baaba hadda cadow laisku noqday cadow marka insha allah bidnillahi alkariim ilahi waxaan ka baryaynaa inuu guryaheena ilaahay wada hagaajiyo inuu dad isfahmo ilaahay naga dhigo inaad wiilal gabdhahooda qiimeeyo inuu ilaahay idinka dhigo gabdhuhuna inay raggooda qiimeeyaan insha allah bidnillahi alkariim labada dhinacba waa la isku leeyahay laakiin dhibaatada weyn meeshay ka socoto waa ragga biidnillahi alkariim nimanka weeyaan odayaasha hala sheekaysanina waa idiin sheegay marka horena odayaasha fadhi kudirirka hala sheekaysanina beentood wey beenaalayaal weeyaan been weeyaan rag wiilasha yararka ee reerahooda dhaqanaya carruuraha yararka haysta iyagoo reerahooda kusoo fashilmay nimankaas waaweyn bay wiilasha iyo reerahooda isku dirayaan wallaahi waan ogay wax badan baan ka ogahay markaa idinkasaa idin leeyahay wax badan baan ka ogahay meelaha markay fadhiyaan oo dhan waxay ka sheekaystaan kii hebel ahaa gabadhi naagtiisii baa soo cagaajisay iyo war isagaa xumaa iyo waxaasay maanta o dhan ka sheekaystaan marka insha allah iska ilaaliya idinkana walaalayaal waa dad wax ka faa'iideen maaragtay walaalihiin sii gaarsiiya insha allah subscribe like share gareeya insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu